maanta laba danjiraan ayaan qaabilnay oo madaxweynaha qaabilay wasaaradda arrimaha dibadda qaabishay safiirka koowaad markii uu horeysa qaabilay wuxuu ahaa safiirka waddanka Czech Republic Czech oo ma joogin safaarad waddanka Soomaaliya muddo dheer Czech waxa ku xigay Ireland Northern Ireland ee ku xigtay Northern Ireland nasiib wanaag labada dowladood horta waxay ka tirsan yihiin European Union ka tirsan yihiin cod muhiim ay ku leeyihiin waxay ku muujinaysaa marka mid kastoo ayaga ka mid ah wuxuu wakiil ka yahay waddankiisii iyo European Union ayuu mas'uul ka yahay oo wakiil ka yahay waxay muujinaysaa marka European Union waa 28 dowladood marka ahmiyadda ay lahaan karto aad garan kartaan marka European Union safiro isdaba joog ah ay soo dirsanayaan